kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo ixtiraamka in laga mudano caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo xilli walba oo idin tahayba waqtiga ha idin wacnaado waayana idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leh maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad nula socotaan ama aad ugu xirantihiin channelka waan idinkaga mahadcelinayaa mar walban waxaan idin leeyahay sharaf iyo cizi karaamo dushiina ha ahaato fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ama aad nala kulantana subscribe saar channelka videogana like gareysina share garee la wadaag asxaab badan si aad mar walba u noqoto daawadaha ugu horeeya ee barnaamijyadeena quruxda badan la socon kara mahadsanidin maanta iyo social media waxyaabaha ugu qatarsan ee maanta social media dhax cararaya ayaa waxa ay tahay hadal hayntii ugu weyneed ee mar walba ka taagan boqorada codka amaba fanaanada qiimaha badan ee sida aadka loo jecel yahay dadkana ay aad u xiiseeyaan Najma Nashaad ayaa run ahaantii waxaan idinkaga hayaa muuqaal cajiib ah oo runtii ay markaasi social media rag badani markaasi sifiye badan ay ku gudbisteen balse iyada ujeedka ay u jeedayna ay ka duwaneed midka ay dadka u qaateen amaba ay u haystaan barnaamijkan waxa uu ahaa video iska soo duubtay iyadoo sheegayso in dhaxanta intaan ka badan aan loo adkeysan karin qof la'aan qasabna ay nolosha ku tahay inay xarooto amaba ay runtii markaasi dadab gasho ay nolol cusub bilaabato laakiin falcelintii ugu weyneed waxa bixiyay rag oo sifiye waaweyn wata kuwaasi oo markaasi sheegay inay yihiin musharaxiinta markaasi jecel in ay nolosha Najma Nashaad ay darawal u noqdaan ama ay xukuumadda Najma Nashaad madaxweyne u noqdaan marka Najma Nashaad hadalkaasi cid ay u waday iyo waxa ay u waday sida wax u jeeday sida markaasi kadib waxa uu dhaceen waan idin la wadaagi doonaa balse marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan muuqaalka idin soo fasaxo kadib ayaan isku soo laabaneynaa ee daawasho wacan wareer dhaxanta lama joogi kare wara waa la xaroodaniyo ana waska xaroodanayo wax tile tambaliina dhawaa anna la ka xaroodanayo Allah nagu daarayo hilbal loo baahay ولا هي ولا حاجه تراده sida aad soo aragteen Najma Nashaad muuqaaladan aad arkaysaan ama muuqaalkan aad arkaysaan ee message-ka weyn xambaarsan waxa ay hawada u marinaysaa dad badanina markaas ay comment-ga ku lahaayeen waxa ay u jeedaa amaba ay markaasi ay leedahay soo soco laguma haye waa xaajigeedii hore cawaaladeyr oo run ahaantii in badan dadka ay sheegaan in ay markaasi rajada ugu weyn amaba ay hadafka ugu weyn ee maanta nolosha loo nisbeenayo ay tahay inay xaajigeedii hore isku soo laaban doonaan iyadoo dad badanina ay fikirkaasi aad u qabaan maadaama ay iyadoo maqan in badan kadib la xitaa la sheegay marar badan in ay xaaji kala yeelatay ama ay nolol cusub ay bilaabatay balse kulli iska soo beenowday oo dhammaan been ay ku soo dhamaatay iyo kadbi ayaa waxa hadana dib ay ugu soo laabatay ama ay u tagtay Hargeysa kadibna waxa ay nolosha markaasi ay dad badani aaminsan yihiin in ay rajada ugu weyn ee tahay markaasi inay cawaaladeer oo ahay xaajigeeda hore ay dib ugu laabato sidaynu ognahay dagaal badan ay gashay Najma Nashaad waxa macnaheedu markaasi dagaalka dadka ugu badan ay la gashay kamid ahaa gabar fanaanad ah oo aan dhamaantiinba wada ogeedeen dagaalkoodii in uu marka social media si xun ama xoogan oo u haystay kadibna ay sheegtay amaba dadka badan ay sheegayeen in uu dagaalkaasi ka kacay amaba uu sabab u ahaa markii Najma Nashaad ku aragtay cawaaladeer oo la taagan gabadhaasi fanaanada ah oo markaasi ay iyadana sidaasi uga hinaastay mar hadii uu hinaaso jiro dadka inta badan waxa ay leeyihiin waxa ay niyada in badan ay ku haysaa xaajigeedii hore amaba xaajiga ay kala tageen ee cawaaladeer waxayna rajo badan ka qabtaa inay noloshoodii hore ay dib u soo askaan ama ay u soo nooleystaan oo ay quruxdii shalay ay lahayd noloshoodii dib ay u soo ceshadaan marooyinka ugu waaweyn ee social media xagga ragga waxyaabaha ugu badan ee qofka ugu badan lagu tuhmaa waa Najma Nashaad oo markaasi ay dadku sheegaan in ay tahay qorada aadka u quruxda badan cod iyo jirba isku darsatay oo sidaas darteed dad badani ay jecel yihiin inay mar uun gaaraan hadalkani marka uu ka soo yeerayna dad badan ayaa macawiisaha iyo guntiga adkaystay iyagoo markaasi diyaar u ahaa inay noloshoodii ama nolosha Najma Nashaad ay markaasi ay ku soo biiraan ama ay noqdaan dad iyada markaasi qaas u ah laakiin iyada ma u jeedaa mase uma jeedo waxyaabaha la yaabka leh
inta badan ay dadka markaasi fanaanada ay ku dhaliilaan waxa kamid ah in aysan xitaa hadii la hadal qabto ayna soo hadleenin macnaha hadal qabashada ma ahan in hadii iyada la caayo ay qofka aamusnaanayso intaasina waa damir xumo laakiin waxa loola jeedaa markii iyada hadalada noocaani oo kala ah social media ay soo galaan kama soo hadasho waxana tusaale weyn noogu filan Bashiir Hanuuniye oo mar la sheegay inuu noqday ninka Najma Nashaad markii lagu arkay sawiro ay lamaana ku yihiin ama ay mataan ku yihiin oo social media si xoogan u soo galay ilaa iyo 3 sawir iyo in ka badan ayay ahayd sawiradaasi oo dhan ayaa dadka waxa ay u arkeen in ay markaasi ay tahay bilowgii nolol cusub oo u bilaabanaysa Najma Nashaad iyo Bashiir Hanuuniye maadaama xaajiyadii hore ee Bashiir Hanuuniye iyadana ay saldhigatay ama ay airport kale ay ka degatay waxa ay dad badani markaasi ay qabeen in uu markaasi isagana uu nolosha ku bedeli doono fanaanad kale maadaama uu yahay nin musician ah aadna oo u jecel yahay guurka gabdhaha fanaaniinta ah fanaaniinta Najma Nashaad fanaanada Najma Nashaad isla waqti xaadirkaasi waxa soo ifbaxay in iyadana ay jirtay nolol kala dhaxaysay Mubaarak October oo markaasina isagana uu qabay boqorada codka Farxiya Fiska intaasi kadib waxa markaasi ay ka soo hadashay iyada oo muuqaalkaasi jawaabtiisa si dhow u soo bixisay inaysan jirin wax xiriir markaasi ama guur ah oo soo kala dhaxgalay iyada iyo Mubaarak October dad badani markaasi waxa ay aad ugu qanceen jawaabta markaasi ay ka soo bixisay Najma Nashaad iyadoo waliba dadka qaar ay sheegayeen in ay been abuur ay tahay markaasina ay runtii ay diidayso runta maadaama iyada iyo Shaadiye Sharaf lagu sheegay in ay nolosha markaasi lamaana kula soo noqdeen ninka odaga ah ee Mubaarak October waxay dadka qaar ee markaasi ay ku eedeynayeen dagaalkii soo kala dhaxgalay iyada iyo Najma Nashaad iyo Shaadiye Sharaf bari oo aan wada ogeyn in social media qabsaday inuu bilowgiisa oo ka kacayba meeseer ama hinaaso laga kala hinaasay ee ku kala hinaaseen Najma Nashaad iyo Shaadiye Sharaf laakiin waxa soo dhan markii la isku soo duubo si waadix ay u hadashay waxa ayna sheegtay inaysan waxba ka jirin malada loo maleynayo in ay iyada iyo ninkaasi markaasi ay wax ka dhaxeeyeen wax badan oo ay ka soo hadashay ayay ku kala cadeysay inaysan jirin xiriir markaasi soo kala dhaxgalo qofkanina uu yahay walaalkeed markaasina ay u hayso walaaltinimo oo kaliya aysan jirin wax markaasi ka duwan oo ay qalbiga ugu hayso ama nolol ahaan u soo kala dhaxgalay sideen wada ognahay Najma Nashaad nolosha ciwaaladeer marka ay ku soo biireysay waxa ay ahayd fanaanad aad u dayar oo isaga ayaa soo garab qabtay soona gaarsiiyay heerka ay maanta gaarsiisan tahay iyadoo markaasi ay ku kala go'een dad badani oo fanaaniin iyo abwaaniin isugu jiro oo markaasi in uu isaga noloshiisa horumar gaarsiiyo halka uu garab taagnaan lahaa Najma Nashaad oo barigaasi fanka aad u xiiseenaysay kadibna uu soo saaray oo gaarsiiyay ilaa iyo maanta ay dunida Soomaalida ay ka wada daba dhacaan fanaanadan oo inuu u arkaan bedelka fanaaniin hore oo tagay codkeedana ay aad u jecel yihiin muuqaalna ay ku sii darsatay si kastoo ay noqotaba dadka waxa ay qabaan in ay sida uu markaasi oo wanaag ugu sameeyay aysan iyada markaasi u garab istaagin laakiin waxaanu leenahay wax walba calaf ayay ahaayeen waqtigeeda ayaa soo dhamaaday laakiin waxaan rajaynaynaa mar labaad inaynu arki doono iyagoo nolosha mataana ku ah ama lamaan ku ah maxay kula tahay maxaa kaaga baxay fiidiyoga bas tahay dadka markaasi CV-ga gudbisanaya xagga commentiga ayaad noogu reebi doontaa inta aan muuqaalkani mid xiga ama ka duwan aan ku kulmi doonana dhamaantiin waxaan idinkaga sii tagayaa namaadiino